xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta ay si cad uga soo horjeesteen in aanay galeyn doorashada golaha deegaanka iyo wakiilada isla mar ahaantaasina aan lagu salaynin saami qaybsi iyo awood qaybsi loo sameeyo dadka goboladaasi degan xildhibaanadani ayaa sidoo kale waxay bogaadiyeen madax dhaqameedka gobolka Awdal oo dhawaanta la kulmay madaxweynaha Soomaaliland iyo dhalinyarada ku nool gobolka Awdal ee had iyo jeer ka hadla masiirka ummadooda isla markaasina waxa ay sheegeen in ay tagi doonaan gobolka Awdal oo ay la kulmi doonaan bulshadooda bayaanna ka soo saari doonaan qabsoomida doorashooyinkaasi isbarkan ee golaha wakiilada iyo deegaanka xildhibaanada golaha wakiilada iyo guurtida ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo arintaasi ka hadlay hadaladoodii waxa kamid ahaa waxweeyaan 30 sanadood baa shuruucdeenu qabiyo tahay inay meel yaro xagga saraa ka bilaabaan loogama baahneen oo ay sameeyaan muuqaal ah maanta 3 nin oo isku jufo oo meel kaliya ka soo wada jeeda inay masiirkii qaranka ka talinayaan muuqaalkaas sameysay oo caalamka oo dhan u muuqda waxay ahayd inay si qaran u eegaan oo waxa basically naga qabiyada ah ee asaasiga ah marka hore wax laga qabto maxaan ku raahdaa anagu hadaan xildhibaanadii nahay golaha 15 sanadood fadhiyaan ugu raali kuma lihiin in maanta la qabto bari la qabtaa la doonaya laakiin waxa ku gadaaman duruufaha ku gadaaman in meesha laga qaaday marka hore taasa oo saami qaybsiga iyo awood qaybsiga saami qaybsiga ma saami qaybsi 13 kan golaha laga ma hadlay war qaranka dhan baa wali la wadaahayn oo qabiyo ah haday ciidanka qaranka tahay haday bilariskii tirarkii ku taagnayd xukuumaddu tahay oo guddoomiyihii maxkamadda sare xeelaaliyihii guud madaxweynihii guddoomiyihii guurtida intaba ay jufo quraata ka soo jeedaan wasiirada intii kiiga ahayd waxaas waxweeyaan in Soomaaliland la wadaleeyay meesha ka soo baxda ay ahayd waxaan arkayay mid wasiir ah oo leh sadbursibay hayaane waxa ka haboonayd magaalo Hiblaayo iyo Hiblaayo ay ahayd waliba number u sheegay leeyna inta helaan iyo inta helaan ba sax aan lahayd hadda iyo maanta ma diidanin inay doorasho ka dhacdo wadanka laakiin ma qaadan karayno in wixii lagu ballamay 2005 oo ilaa maanta soo jiitamay inay 3 inan oo ilmaadeerihi intoo shir qabsadaan ay rahaan deed Hiblaayo iyo lagu soconayaa in doorashada la galo oo inta leego tixgelina aanay siinin oo waxa lagu soconayaa sidii markii hore loo galay oo xitaa ku jirin aan isla eegno xagga kale ugu wareegi doonaa maanta loo galo loo isticmaalayo amar amal aan qorqabasho biyaha la isku cabsiinayo that will never ever happen dhici mayso mana dhici doonto mana ogolaanayno mana aqbali doono dhacay waxay musabbixi waa maalintay ugu darnayd bay maraysaa waxa iman doona mid akhmaqa hadii maanta anan qaydiinka lagu soo hormin awood qaybsiga oo waxa la isku ogyahay anan lagu heshiin waxa iman doona ku akhmaqa oo aan waxba isku wadayn oo anan meel eegayn oo ummadda Soomaaliland eegayn oo anan garaadkiisuba ilaa ummadda bilaadanka waxa ka soo soo bixi karay taraamo kala soo bixi kara dadka oo haddu marka wax macquul ma aha maanta joogta maanta inaad masayrka iyo awood qaybsigiina ka tanaasushaan waxa iman doona ku akhmaqa oo ma wajirtaan oran doona maalinta ka dambayso arkaysa rag soo kor maskax badan yihiin maanta halkay maraysa arkaysan awoodi waa 3 wasiir 4 wasiir baan galbeedka oo dhan marka la eego ciise gadbuus marka war maanta waxa u baahanahay in qaydiinka lagu qaybtamo awood qaybsi raali laga wadayahay oo Soomaaliland waa waday ilaah baa wada dhigay ummadan marna kala tagi mayso waa isku dano iyaga cid walba iskaga dhow waxaan u baahanahay wax cad
oo la isku ogaado oo la lahaado oo mustaqbal iyo future ko dhan lagu xisaabtamo ayaan doonaynaa waxaan doonayaa madaxweynaha doonaya ay dhaho ma demasirkiina ma hayo masiirkiina ma hayo annaga hayna annaguna waan isku raacsannahay sida aad yeesheen waan diyaarna waan iniinnahay inaan iniin nimaadnana diyaar baan u nahay ka hambalyeynaa odayaashii qaranka waxaan annagoo ka turjumayna labada gole taageersannahay shacbiga aanu ka wakiilkanahay taabitaankooda hadday tahay dhallinyarada hadday tahay odayada masiirkani ma noqonayo mid cid looga marti yahay waxbaynu wada leenahay waxbaanu wada samaysanay haddii wixii ay noqotay in cid qoorta iskaga duubto noqon mayso markaad wax sii jiray la tahay waxa weeye dhalinyarada masiirkooga iyo awood qaybsigooga waxa weeye maanta muujiyay ee aan ka gaban mahadnaqa ballaadhan baan u soo jeedinayaa waxaan u sheegayaa inay xildhibaanadu u soo socdaan gobolka Awdal dhalinyarada waayeelka salaadiinta gobolka iyo guud ahaan inaynu halkaa ku tashanayno bayaanna ka soo saari doono haddii Allah dambeeyay waxa ka taagnaa gobolka Awdal iyo Salal tabashooyin ba'an oo ay kaga soo horjeedaan dadkaasi doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka isla markaasina waxa ay dalbanayaan in dalka laga sameeyo awood qaybsi iyo sidoo kale saami qaybsi ku salaysan cadaalad Boqor Axmed Cabdi 5TV Hargeysa